wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Mudane Cabdullaahi Ibrahim Habane oo weheliyaan mas'uuliyiinta sarsare ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa habeenkii xalay soo xidhay bandhigga jaamacadaha oo maalintii labaad ka soconaya hotel Guled ee magaalada Hargeysa iyadoo sidoo kalena ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u tiro badan. Haddaba bandhiggan ay jaamacadaha kala duwan ee dalku ka soo qayb galeen ayaa jaamacad kasta waxay ku soo bandhigaysay heerka ay waxbarashadeedu taagan tahay iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen iyadoo xilligan ay ardayda dugsiyada sare ka soo baxayaan u diyaar garoobayaan sida ay u keli lahaayeen jaamacadaha kala duwan ee dalka. waxaana sidoo kale abaarmin halkaasi lagu guddoonsiiyay qaar ka mid ah jaamacadihii ka soo qayb galay bandhigaasi iyo dhalinyarada kala duwan oo wax ka qoray qiimaha ay waxbarashadu leedahay iyo weliba qaybaha kale ee nolosha. waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo dadweyne kale oo dhammaantood ka hadlaya ahmiyadda ay leedahay waxbarashadu ama wax cilmi iyo aqoon ha ahaato ama haddii beedmay sheeko dhacdayba oo xaqiiqi ha ahaato wax ku qiimaynta koowaad waxay ahayd qalabka la soo bandhigay ee goobta la keenay. qalabka markaan eegaynay waxaan ka eegaynay 5 qaybood oo kala ahaa nooca qalabka wax dhigaal ee goobta la keenay, kaabayaasha waxbarasho ee goobta lagu soo bandhigay, sida agabkan uu munaasib ku yahay baahida kuliyadda markaa oo kuliyad caafimaad oo qalab caafimaad keentayba mise waa kuliyad artisa oo qalab caafimaad meesha keentay oo kale ka mid ah iyo tayada agabka waxbarashada. waxaanu kaloo haysanay iyada qaadanay dhardhaar labaad oo ahaa habdhaqanka dadka markaa jooga qaybta buudka jaamacadda. iyana waxaanu ka eegnay 5 qaybood oo ahayd siday uga go'an tahay dadka jaamacadda markaa matalaya inay si mugla uga qayb galaan bandhigga carwada. waxaanu kaloo eegnay habka ay dadka u qaabilayaan ama u soo jiidanayaan annagoo qaarkood 4 markooda nimaadno su'aalo fara badan weydiinaynay. waxaanu kaloo eegaynay heerka qarcintooda iyo sida dadka u qarcinayaan. waxaanu kaloo eegaynay tirada ay meesha ku joogaan ma hal qof baa jooga mise wax ka badan ayaan iyadana eegaynay. waxaanu kaloo eegaynay sida ay u labisan yihiin macnaha dhaqanka iyo iyaga maxaa ka dhaxeeya professionally ma u labisan yihiin oo ma matalayaan markaa jaamacaddii. waxaanu kaloo qaadanay markaa isagana dhardhaar saddexaad oo wax ku qiimaynaynay oo ahaa khudbadihii la jeedinayay halka laga jeedinayay ee jaamacadda ay jeedinayeen. khudbadaha waxaanu ka eegnay kii Soomaaliga ahaa ee meel kale aan ka iman ee dalkan aynu joogno ka abuurmay waana mid dhawaan u yimi maahee taariikh dheer leh sidaad ogtihiin. kaas waa mid. xadaaradda labaad waxa weeye diinta islaamka. waxaynu nahay Afrika marka la eego dadkii ugu horreeyey ee qaatay ee aqbalay ee seef lagu muslimin. horta taasina xadaarad weeye oo maaha uun diinta waa dhaqan dhan oo buuxa isaguna. marka taana waxbaynu ka haysanaa. ta saddexaad waxa weeye mustacmar baa ina qabsaday sida adduunyadii kale uu qabsaday oo Yurub ka yimi. marka kudhiisuna saameyn buu inagu leeyahay. barbarkiisa galbeed bilowga jigjigaya baalaha badda cas samartay barbarkiisa diinadeeda ku taalo bidil baa ka baxaya ka badhiisho waa la maslanta dhaqtiisa ayuu habku dhaatay inaguna dhawa soo baxaan daba dhaqanay dhaldhalaal jabaniyo qurbaha waan ku dholnay dhagta qaadkaya lagu lumiyo dhishla daawada. ugu dambeynna waxaa soo afmiray wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Mudane Cabdullaahi Ibrahim Habane oo dhammaanna kula dardaarmay inay jaamacaduhu sida ay isugu duubnaadaan iyo sidii loo tayeyn lahaa heerka waxbarasho ee dalka Soomaaliland. waa tayeynta waxbarashada weeyaan. arrinta tayada ah maanta waa tan shalayba sheegay macallinka oo la tayeeyay mooyaane ma suuroobayso. maanta waxaynu dhismihii baynu bilownay kuliyaddii waxbarashada macallimiinta ayaynu dhismaheedii bilownay. waxay naga caawiyey oo inaga maalgeliyey European Unionka iyo mashruuca la yidhaahdo Global Partnership for Education oo bilowgii bilaabay dhammaystirkana waan ka rajaynaynaa. sanadka bisha 7 waxaa qabsoomaa bandhigga jaamacadaha kala duwan iyadoo ay jaamacaduhu ku tartamaan qaabka ay u hanan lahaayeen ardayda kala duwan ee ka soo baxaysa dugsiyada dalka. Axmed Khaalid Farax, Kalsan TV, Hargeysa.